السلام عليكم. نيكا فيديو كان وجه دان وحلها معاوية تاكر وانين شيخة وحكسوا بحاجة جامعة مدينة ودنك سعودية عربية. نيكا ورئيسانية سيف الدين آموس وانين مسلمة وانين بروفيسورة وانين دقالها ودنك فلسطين كيمين waxay ka hadlayaan arrin aad iyo aad muhiim u ah oo indhihiina furi doonta oo dadka muslimiinta dadka Soomaalida aad iyo aad u saameynaysa. Sayfidiin wuxuu soo qaatay example fiican wuxuu leeyahay hadda jasiirad ilaa ku nooshahay oo kaliya aad haysatid khansiirka waxa lagu ogol yahay khansiirka inaad cuntid haddii aad heshid laakiin jasiiradii ka dhaxaysid xoolo kale oo xalaal hadda lo oo kale aad ka heshid oo aqalan kartid ama ari ka heshid laguma ogol inaad khansiirka sii cuntid xaraam ka noqonaya khansiirku waa xaaraan sa ogtiin laakiin markay daruuri timaado oo naftaadu ay dhimanayso wuxuu ku leeyahay waa lagu ogol yahay inaad cuntid khansiirkii laakiin markaad heshid waynaad isku daydo inaad heshid ogow meel iska fadhiyi maysid oran maysid khansiirkii iska cunaya laakiin wayna juhdi iskalisid waraasid waxaad kaga baxdid xaaraantan hadii daruurinimada uga baxdid marka lacagahan dollarka US dollarka poundka eurada kulli fiyaadka oo dhan wuxuu ku leeyahay waa idinkoo khansiirka cunaya oo kaleeto marka waxay ka sheekeynayaan labadaba sida lacagaha lagu soo saaro sida dhaqaalaha adduunka hadda aan ku jirno oo ribo ugu dhisan yahay ribadu dadka muslimiinta ama Soomaalida intooda badan ama dad badan kamid ah ma dareensana inay tahay ribadu wax dambi weyn ribadu waxay ku jirtaa akbar dabaa'id dambiyada ugu waaweyn Sheekh Muawiya wuxuu tusaale u soo qaadanaya lacagta Sacuudiga riyaalka si lagu soo saaray wuxuu kaloo ka sheekeynaya lacagaha dollarka iyo poundka iyo eurada si lagu soo saaray waxaas dhan wuxuu ku leeyahay lacagaha dhan lacagahan fiyaadka oo poundka iyo eurada iyo dollarka iyo waxa lagu soo saaray wax la dhaho interest oo markay soo baxayeen ayaa interest saarnayd oo bangiyada dhexe iyo dawladdu waxay ku soo saarto waa si aan ribo ku dhisan interest hadaa maqashaan waa riba hadii lacag la dur saarto waa riba definition uu bixinayo sheekhan waa nin aad iyo aad takhasus u leh culimada badanaa waxay fadwadooda waxa weeye lacagta sababta loo isticmaalay in daruuri ay tahay oo wax kale lagu bedelo hadda UK ku nooshahay lacag kale isticmaashimaaysa waa dhimanaysa markaas kula daruuri ku tahay laakiin hadda doodooda waxa weeye hadda wareysigan si fiican u dhageystaan markii la helo wax xalaal oo laga bixi karo daruurinimada meesha ay ku burburaysaa waa in marka wuxuu ku leeyahay hadda waxa la helay bitcoin oo ah lacag xalaal oo la isticmaali karo bitcoin oo ah si xalaal ku soo baxday oo ah lacagta ugu xalaalsan asoo wuxuu aaminsan yahay bitcoin inay tahay lacag la soo saaratay ugu xalaalsanayd inay tahay oo si cadaalad ku soo baxday oo cidna maamulin oo dawlad lahayn neutral wax la yiraahdo oo dawladda Mareykanka iska lahayn ama aysan maamulin ama dawladaha westernka aysan maamulin ama qof gooni u san lahayn qof walba u dhaxayso qof aan la aqoon ayaa soo saaray isqariyay sidaas ay hawada uga baxay laakiin xataa hadduu maanta qofkii soo saaray soo noqdo wax awood uu kaga bedeli karo bitcoin ma jirto maxaa yeelay waa bitcoin waa decentralized wax la yiraahdo jiro hore ka soo sheekay hadda wuxuu aaminsan yahay inuu dahabka ay ka fiican tahay Sheekh Muawiya wuxuu yahay dadka aad iyo aad ugu ololeeya bitcoin siiba dhinaca dadka muslimiinta oo bitcoin ku jira ayuu ku jira dadka ugu horeeya oo aad iyo aad ugu ololeeya Twitterkiisa daaragtan YouTube buu leeyahay waxa kale oo cajiib noqotay Muawiya oo example u soo qaatay in 2020 laga soo bilaabo ilaa hadda waa muddo 3 sano ah oo uusan isticmaalin ama u badnayn in lacagaha isticmaalo fiyaadka waxa la dhahaa poundka eurada dollarka Muawiya wuxuu ku noolyahay wadankan UK ku leeyahay poundka ma isticmaala waxa isticmaalaa oo kaliya waa bitcoin 3 sano ilaa hadda hadaan shaah gadan iyo hadaan cunto gadan iyo hadaan rent bixinayo waxba ayadana isticmaala inta badan saas ku leeyahay Muawiya wuxuu leeyahay channel YouTube oo kaga sheekeynaya qaabka uu maalin walba u isticmaalo bitcoin iyo waxyaalaha uu isticmaalo ka sheekeynaya marka waxa leeyahay dadka muslimiinta oo Soomaalida ah lacagaha oo dollarka ah si xaaraan ku soo baxday leeyahay sheekhan lacag ka madax banaan lacagta dollarka ma jirto ama Sacuudi riyaal ha noqoto ama shilin Soomaali ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto xalaalnimadooda ayaa shaki la gelinaya qof walba muslim waxa kula talinaya inaad arintaas ribada ku saabsan iyo interestiga inaad xooga saartaan barataan iyo sida looga bixi karo bitcoin waa solutionka aniga iyo dadka ila mid ah Sheekh Muawiya kamid yahay oo Sayfidiin kamid yahay iyo dad kale oo muslima oo badan san aaminsanahay bitcoin waxa u maleynaynaa inay tahay xal ama solution looga bixi karo ribadan iyo lacagahan iyo dhaqaalahan adduunka oo dhan hadda ribada ku dhisan waa mid kaliya looga bixi karo ayaan aaminsanahay laakiin ilaah baa og wixii saxsan kan wareysigiisa waxaan hoos ayaan soo dhigayaa waxaan kula talinayaa inaad daawataan wareysi kale oo Sayfidiin qaaday oo dadka muslimiinta
oo dhaqaalayahanka ama bangiyada uu waraystay baa jira oo ayagana hoos baan soo gelinaya qofkii danaynaya. Sayfidiin wuxuu qoray buug ugu caansan Bitcoin Standard ayaa la dhahaa, waa buug Amazon hadda Bitcoin Standard ku qortan ninkan ayaa qoray af Ingiriis ku qoray laakiin luqado badan baa ku heli kartaan, Carabiga dadka fahmaya iyo luqado kale oo badan buugan ku qoran yahay way jirtaa. mar qofkii wixii su'aalo ama comment ay waxaan ka codsanayaa inaad hoos ama email igu soo dirtaan. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.